السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا دي سلامي داودياشي يد مول بات joogtaan waa Dear Solutions oo idinka imaanaysa magaalada Garowe annagoo maanta rabnaa inaan kala hadalno cudurkan adduunka ku baahsaday oo la yiraahdo coronavirus. mar walba waxaad nooga barateen inaan idin soo gudbino macluumaad idin deeqaya oo maxaan ku rahday aad ka faa'iideysan kartaan macluumaadkaas oo aan jecelnahay inaad la wadaagtaan qoyskiina iyo bulshadiinaba. sidaad ogtihiin cudur la yiraahdo coronavirus covid ama caabuq intaba loo yaqaano ayaa adduunyada oo dhan ku baahsaday dad badan laayay dad badan dilay dad badanna u jiifaan meel walba wuu gaaray laakiin hadda wuxuu u soo socdaa Soomaaliya ama kuba jira dad badan oo cudurka qaaday hadda way joogaan qaar badan oo u dhintayna way jiraan qaar badan oo u jiifaana way joogaan inta dhimatay Allah u naxariisto inta xanuunku hayana Allah caafimaad ha siiyo waxaan halka markaa idinka soo jeedinaynaa arrimo ku saabsan sida looga taxadiri lahaa ama maxaan ku iraahdaa la isaga ilaalin lahaa cudurka si adiguna u qaadid ama aad qof kale u qaadsiisid dadka aanu meesha idinku keenaynaa inta badan waa dad khabiiriin ah aanu jecelnahay inaad ka faa'iideysataan maanta waxaana la joogta Muna oo ka shaqeysa arrimaha bulshada waliba wacyigelinta arrimaha bulshada Muna soo dhawow aad buu mahadsantahay Yaasmin walaal waan dhawahay ما شاء الله Muna cali weeyaan Muna aan rabnaa inay maanta nagala hadasho waxaan ku raahdaa sida la isaga ilaalin karo ama looga taxadiri karo cudurkan aad iyo aad baad u mahadsantahay inaad naga qabshidaan inaad soo join galisid maanta noo timaadid Muna insha Allah waxaan rabnaa inaad wax nooga qeexdid bal arrimaha waxa la yiraahdo cudurkan ka hortag buu leeyahay kadabatigiisu aad buu adag yahay arrimaha lagaga hortagi karo Muna adigoo noo soo koobaya imisa sidee baa looga hortagi karo cudurkan mar dhow insha Allah si faahfaahinta si gali doona laakiin marka hore bal noo qeex siyaabaha looga hortagi karo waxyaalo kamid ah aad buu mahadsantahay Yaasmin horta waa taad sheegtay cudurkan wuxuu ku fiican yahay horta cudur walba ka hortag buu ku fiican yahay waayo markuu dhaco waxyaalaha laga qaban karo waa iska yar yihiin laakiin haddaynu soo koobno waxyaalaha laga hortagi karo aynu rabno maanta inaynu dadka ka wacyigelino waxa kamid ah dhaqidda gacmaha oo si joogto ah gacmaha loo dhaqayo oo ka badan intii hore oo la dhaqi jiray waxa la dhaho social distancing ama physical distancing waxa la dhaho oo ah in dadka ay masaafo 1 mitir ilaa 2 mitir ah oo 1 mitir ugu yaraan ah ay kala fogaadaan waxa kale oo jira waxa la dhaho social distancing oo ah inay dadka dhaqdhaqaaqooda iyo isdhexgalka in la yareeyo oo movementka dadka in la yareeyo iyo arrinka kale aad u muhiim ah waxa weeye qofku markii uu hindisayo ama markii uu qofacayo inuu afkiisa iyo sankiisa uu daboosho isaga oo iyadana inuu sii gali doono sababaha loo leeyahay sankiyo afka hal la daboolo inuu ama qofku mara uu ku daboolo ama tissue-ga inuu ku daboolo ama gacantiisa isagoo sidaas cududka ama suxulka ugu qabanaya marka inagoo soo koobayna hadhowdii baynu sii galgalaynaa intaas weeye waxyaalaha muhiimka ah oo qofka laga rabo haddii uu xoog saaro insha Allah inuu naftiisa iyo dadka kale uu ka badbaadin karo cudurkan ما شاء الله aad baad u qeexday hadaba hadii aan si faahfaahinta si galo Muna bal waxaad nooga yara sheekaysaa wax nooga tataabataa arrimaha gacan dhaqa waxaad afka ku dhufatay gacan dhaqo aanu ahayn kii hore laakiin siyaabada sidii hore ka bedelan gacanta loo dhaqayo waxaad noo sheegtaa muhiimadda ay taasi leedahay horta gacan dhaqa dad muslimaynu nahay oo gacmaheena waynu dhaqanaa badanaa nadaafada wayna ku badan tahay haddaynu dad musliman nahay waaba nisful iimaankeena barkiisa weeye marka dadkeena waynu garanaynaa gacan dhaqi ma aha wax maanta dadka la baryo lagu leeyahay gacmaha la dhaqdo laakiin gacan dhaqa maanta la sheegay waa gacan dhaq ka badan oo kasii maaragtay duwan gacan dhaqi caadiga ahaa oo day doonaan dadku biyo ay ku farxalan jireen kaliya waxa la rabaa in si frequent ah oo si joogto ah oo ka badan in badan kasii badan xilliyadii hore oo aynu dhaqi jirnay awal in gacmaha la dhaqo taasi waa kow labo waxa la rabaa in saabuun iyo biyo in lagu dhaqo markasta gacmahaaga dhaqaysid gacan dhaqa la sheegayo oo ah ka hortagga cudurkan waa gacan dhaq biyo iyo saabuun lagu dhaqayo saddex gacan dhaqaas waa in muddo maaragtay 20 ilbiriqsi ah ugu yaraan uu qofku uu gacmihiisa dhaqaya isaga oo faraha gacmaha isgelgelinaya gacmaha dushooda marinaya sidoo kale isaga oo maaragtay
suulka iyo labada suulna si fiican u dhaqaya marka waxa la rabaa inaad si fiican gacmaha u gali cidiyaha adigoo saa u marmarinaya waxa la rabaa muddo 20 ilbiriqsi ah ugu yaraan inaad dhaqdid keliyana ma aha markii waxaanu baranay inaynu markaan cunto cunayno ka hor iyo markaan cuntada maaragtay kadib ah iyo laga yaabo markaan suuliga laga soo baxo oo kale in dadku ay gacmaha dhaqdaan maya hadda waxa la rabaa xilliyo oo more frequent ah ama joogto ah in la dhaqo intaadan cunto diyaarin intaadan cuntada caruurta u diyaarin oo siin intaadan adigu cuntada cunin kadib markaa cuntada cuntid intaadan maaragtay markii aad meelo taabatid ama maxaa la dhahaye surfaceka maxaa la dhahaye ama miis aad taabatid ama albaab aad taabatid ama aad shay taabatid oo laga yaabo inuu viruski uu soo gaaray marka inay joogtada noqoto baa la rabaa qofku halkii dadna waxay leeyihiin halkii nus saacada hal mar ilaa halkii saacadood hal mar waayo waad takhayuli kartaa ama you can imagine how many intee meelood baad taabanaysaa halkii saac gudaheed ama intee shay baad taabanaysaa ama intee hawlba haddaad tahay hooyo ama qof guriga jooga aad faraha la gelaysaa oo ay ka mid tahay caruurtii xanaanayntoodii iyo quudintoodii marka waxaa la rabaa inay noqoto wax joogto ah oo maaragtay ay dadku joogto ka dhigaan oo ay shuruudahaasna leh si fiican hadal aad u muhiim ah tiri munay waxa tiri meelaha la taabto marka waxa weeye marka bulshada for example aad suuqa la joogo oo kale waxa jira meelo badan oo dad ka horeeyay ay taabteen oo hadii aad laga yaabo cudurkii inuu jeermiski ama wasakhdii qofka kale ka tagtay ay dul saaran tahay micnihi waa albaabada waa marka albaabada la riixayo waa marka maxaan ku yiraahdaayay suuqa la joogo meel qof bulshadii ay taabatay dad badan baa meesha isugu imaanaya marka mar walba waxaad leedahay waxa muhiim ah marka guriga lagu soo noqdo for example in joogto laga dhigo in gacantii la dhaqo ilmihii gacanta loo dhaqo intaadan wax kale taaban intaadan haw kale u dhaqaaqin waliba suuqa waadiga ka dhawaajiyo suuqa iyo markaa ka soo noqotid ama aad maaragtay ama aad guriga dibadiisa aad ka imaatid oo guriga aad soo galaysid intaadan wax kaleba taaban waa inaad shayga ugu horeeya aad samaysid waa gacmo dhaqaaga adiga kaliya maaha haddii aad qof dumar aad tahay ama hooyo tahay ama qof waxyaalahaynu sheegnay hawlahaynu sheegnay wada laakiin caruurtana waxaa la rabaa in laga taxadiro in loo gacmo dhaqo markii ay soo galaan waayo caruurta laftirkooda way soo raaci kartaa iyagoo meelo kale soo taataabtay ama xubnaha qoyskoo kale sidoo kale in loogu aad iyo aad loogu taxallujiyo ama loogu dhiirigeliyo inay gacmahooda dhaqaan markasta markay dibadda ka yimaadaan ما شاء الله سيفي عم بعد قحدي أن وحيالها كلا أو أن مقالة أو أن أيامها إنه قصة رنتي كردية أو دمول بلقى شيء جو إن ربنا إنه نسيفها فاهنه وحكم إذا إن أفكلا أبو رئيسنا إن أفكر دبول لصاروا أما وحنا لو يقعنا ماسك لصاروا إن تاقول لدي وحيالها أي كهر تجي سبل إن نويره فاه أوكي إن عاد مهم تاي هرتوا وحيالها عاد مهمة يدنا أو صاحب تجمع الدقة عذر كان أما عذر كان سين أجنه هذا أما سين لينو شيء جاي وعذر فيروس كبدبا فيروس كاسينا هو فيروس أو ماركتي دت كان نفمرينتي سئيو مرا أو هالكاتشو وهذا ودي دت كلا قفك عذر كقاضي وحده وقصو جد بكرا أما وحده وقصو بحي كرا يسقى قفك يسقى هندسي أما قفعي دبعها كصوبة هي أفكيس أو فيروس كيوتا صح دبعهاس أو دور هبكو ماركتي كو جد بكرة أما قفكي مركي وقفعي أما استجوا السوقاتي لفتركيسة أو قعمهيسة أما تشركيسة بيسوقاتي قفكي هلو دي مالك لو تعتعتين يو أما قفكي لفتركيسة مركي وقفعه هندسة قف أكتيسة أو أدو بوتوس وجارية أو هودا وجد بنيسة وإسكو هواي نفسنا يعني أو فيروس كي مكتشرة تاسع وحي كانت إن لدهو لبا شيء بقى أما لبا سبب إن أفكار الله حرته كو وحوايا قفك قبع عذرك وهندسية أما قفعية إنه إساقو أي نقطة هب وقا إلالين لهادتك كلا إنه فيروس كاسي وقدبو وإنه إساقو قدبو فيروس كقفكو marka waxa la rabaa qofkaas oo kale inuu mask xirto waliba waatan keentay in meelaha qaar kood markay maskyadii ay yaraadeen caalamka xataa hormaray
la yiri maaskiyada dadka xanuunsanaya ha ku ekaadaan iyo dadka dhaqaaleynaya ama daryeelaya oo ka mid yihiin dadka caafimaadka ka shaqeeya waxaad ka hadlaysaa maaskiyadan medicalka ah oo lagu soo sameeyo special iyaga loo sameeyo cudurka loogu talagalay exactly marka iyaga kuwaasaa la yiri dadkaasi ha xirtaan oo cudurka qabo iyagana ha ku ekaato waa sababta loo yiri waayo meesha ugu horeysa oo laga ilaalin karo waa qofka qaba inuu isagu ka ilaaliyo dadka kale isaga oo afkiisa xiranaya dadka kale markay khusayso oo aan ahayn dadka qaba ama la rabo inuu isaga taxadir ahaan u xirto waa inaga oo haddaanaynu qabin laa samaxa allah ilaahay naguma keene waxaa la rabaa sidoo kale inay taxadir ahaan inuu afkeena u xirno si hawo uu ku jiro haddaynu dhex joogno ama dad qaba aynu la dhaqmayno ama aynu la tacaamulayno oo aynu isku meel joogno inaanu cudurkaasi inoo soo gudbin markaasoo kale maaskiyada kuwa badan baa jira maxaa la dhahayay oo xataa quwadooda ama facaaliyadooda ama maxaa la dhahayay yani inuu siduu u shaqayn lahaa ama inuu si fiican u shaqeeyo ay kala duwan yihiin maxaa la dhahay waa kuwa dhakhaatiirta oo iyagoo xataa noocyo kala duwan leh kuwa dalkeena way ku yar yihiin aad bay ugu yar yihiin runtiina stage kan aynu joogno qofka haddaanu qabin umaba baahna inuu xirto afdaboolka marka aynu ka hadlayno muxuu yahay oo ina khuseeyo dadkeena aan qabin haddaa maask helaysid waa okay weeye waad fiican tahay maaskigaaga raadso laakiin dadkeena hadda oo kale dalkeena aan maaskiyada laga helayn maaskiyo oo maro ah baa jira ama maaragtay afduub maro ah baa badanaa hadda laleeyahay baa la samayn kara adigoo maradii dhowr jeer isku duubaya WHO xataa laftarkeeda videoyo badan bay soo saartay oo ay ku demonstrate garaynayaan habka uu qofku uu maaski ama gurigiisa uu u samayn karo ama local production haddii la rabo in laga sameeyo oo maaragtay bulshada laftarkooda isku xilqaamaan inay maaskiyo samaystaan ay u samaysan lahaayeen laakiin afduubka ama in qofku uu afka maro ku xirto aad iyo aad bay u muhiim tahay waana waxyaalaha ugu horeeya uu qofku uu naftiisa uu kaga difaaci karo cudurka weliba markii aad meelaha la isugu yimaado oo isdhexgalka badan oo bulshada ay ka jirto hadda sida suuqa oo kale sharikadaha iyo meelaha adeega ay dadku ka doontaan dhakhaatiirka oo kale oo dadku dee qofka waa run waa la yiri hala yaryarayo socodka laakiin waxyaalo muhiima jiro uu qofku u baxayo markii aad wax muhiima u baxaysid oo aad laga yaabo inaad dadka dhex gelaysid waxaa la rabaa inaad afkaaga maro ku xiratid aad bayna u muhiim tahay inaad tallaabada aad samaysid aad iyo aad waxaadna afka ku dhufatay in haddii la waayo kan loogu talagalay oo la yidhahdo medical mask haddii la waayo dadku iyagu ay samaysan karaan waliba si yaro khafiifa ay mara haddii ay 3 jeer la laabaan oo cinjir ay ku dhijiyaan taasiba ay noqon karto mask la isticmaali karo aad baad u mahadsan tahay waxaan rabay hadda inaan haddaba insha Allah hore ugu sii socono waxaan rabay inaan munay ku weydiiyo waxa jira wax kale oo waxyaalaha hawlo kale oo iyaguna la yiri taxadirka iyo alaalanta iyo cudurkaas inuu dadka waarta bulshada aad u saameeyo ayaa laga hortagi karaa taas waa ta ay u bixiyeen kala fogaanshaha ama social distancing ama self isolating waxay u bixiyeen oo ah in la kala fogaado dadku guryahooda ku ekaadaan dadku aanay isu imaan dadku aanay isbooqanin mid iyaduna waa mid runtii Soomaali haddaynu nahay caan aynu ku nahay inaynu isbooqano inaynu maaragtay isdugsano inaynu isu nimaadno inaynu wada sheekaysano waa wax aynu caan ku nahay waana waxyaalaha ugu waaweyn oo runtii cudurka uu ku faafi karo sida hadda aynu ogaanay marka inaga oo og dhaqankeeni iyo culturekeenu sida uu yahay inaynu nahay dad runtii kala hela inay aad hoosta isaga galaan oo maxaan ku wada baashaalaan oo isdugsadaan oo caa'ilad iyo asxaab iyo walaaltinimaba isugu yimaadaan taas ayaa hadda laga dayriyay marka bal noo qaxoota waxa ay tahay social distancing iyo self isolation waxa ay tahay iyo sida ay u saameyn karto bulshada Soomaaliyeed okay waa point aad muhiim ah laakiin Yasmiina intaanay u gudbin social distancing ka arin kala raba inaan taabto oo physical distancing ka ah oo masaafada 1 mitir ah because taasna aad bay u muhiim tahay runtii waa waxyaalaha ilaa hadda ay adag tahay inay dadku qaataan wayna la yar xiriirtaa waxyaalaha kale oo hadayna mention garaynay markii aynu soo koobaynay pointyada hordhacayni waxa ka mid ahaa physical distancing-ka waxa weeye inuu qofku uu ka fogaado dadka kale muddo 1 mitir ah
waxa la rabaa qofku inuu masaafo 1 mitir 1 mitir ilaa 2 mitir oo ugu yartahay 1 mitir inuu qofku uu dadka kale uu la joogo ama dadka kale uu la dhaqmayo ama dadka kale uu wax adeega uu ka qaadanayo inuu tahay inuu u jiro waliba markii dibadda la joogo guriga marka dibadda guriga joogtid oo aad maaragtay meelaha adeegyada oo kale ama suuqa oo kale aad maaragtay aad wax ka raadsanaysid aad iyo aad bay muhiim u tahay inay dadku taas aad u tixgeliyaan 1 mitir ugu yaraan inaad adiga iyo qofka kale sida kugu suurtagalka ah mararka qaarkood meelaha jira aad iyo aad dadku ay isugu jiraan waad dareemi kartaa suuqyadeena shacbiga ama suuqyadeena caadiga adeega u doonano siday dadku aad isugu dhex jiraan marka taas waa mas'uuliyad runtii ay tahay qofku inuu aad iyo aad isaga uga taxadiro oo naftiisana uu iska saaro inuu iska ilaaliyo ama inuu ka fogaado dadka kale masaafo 1 mitir ah iyo waxyaalihii kale aynu hadda soo sheegnay aan u gudbo marka social isolationka iyaduna a type of ama mid ka mid ah physical distancingka laga hadlayo social isolationka waa taad sheegtay waxa weeye inay dadku ay socodkooda ay yareeyaan guryahoodana ay ku ekaadaan haddaanay u baxayn wax daruuri ah يعني wixii wax daruuri ah oo maaragtay adeega maalmeedkii ah oo dadka suuqa kaga xiran ama maaragtay waxyaalihii emergency qofka ku imaan kara ama qof dhakhtar geysan kartid waa meesheeda weey waxyaalahaas oo waa situations oo ah wixii daruuri ah moogtahay laakiin wixii aan daruuri ahayn inuu qofku maxaa la dhahayay inuu gurigiisa uu joogo oo ka ekaado waa social isolation marka waxa hoos imaanaysa kaliya ma aha inta inuu qofku gurigiisa joogo kamaan waxa hoos imaanaysa in ay dad socodka saad sheegtay iyo booqashada badan iyo isdhexgalka badan iyo makhaayadihii la aadayay iyo hoteeladii la aadayay iyo dariskii iyo qaraabadii isku dhex socsoconayay isu imaanayay booqashada dadka xanuunsanaya maca waxa lagu leeyahay waa inaad joojisid waayo waxa laga yaabaa waxan waa wax fiican waa wax diinteena ay aad iyo aad ku jira iyo dhaqankeena fiican laakiin waqtigan la joogo runtii sida ugu badan oo in maanta wax isku tari karno oo in jacaylkeena iyo naxariisteena in isugu muujin karno waa inaga kala joogna weeye waayo isdhexgalkii hore oo awal raxmad ahaa iyo qaraabo iyo isjacayl maanta inuu waxyeelo badan keeno baa laga yaabaa awal qofku hadduu ina ka xanuusto waynu booqan jirnay maanta waxaa lagu leeyahay hadduu qof xanuusto qaraabadaada ah ama familkaaga ah ka joog taleefon baa la hayaa whatsappyada aad loo isticmaalaa adeegyada technologyga baa aad u badan oo maanta la iskaga warheli karaa waxaad leedahay wixii markii hore u samayn jirnay jacayl iyo ixtiraam maanta wuxuu keenayaa khatartiisa iyo cudurkiisu leeyahay laga yaabo qof aad cashahay aad dhakhtarka ugu tagtid inaad cudurka intaad ka soo qaadid aad bulshada inteeda kale u soo wareejisid marka ka fogaantaas ayaa ixtiraamka iyo wanaagga iyo maxaan ku raacaa jacaylka muujinaysa intaas ku jira baad leedahay sax ku socomuna aad maxaa la dhahayay way adag tahay horta pointka ka dhawaajisay walaal oo ah bulshadeena aad bay uga adag tahay waxyaalahaas inay qaataan ilaa haddana dawladda hadday noqoto dawladda federaalka ah ama hadday noqoto dawladaha gobolada oo xataa oo hadda Puntland oo kale I think 3 weeks ago baa la yiri in dhaqdhaqaaqyada iyo fariimahaas la soo gudbiyay in dhaqdhaqaaqa iyo socodka badan in la joojiyo laakiin hadda magaalada hadda u baxday runtii waxa arkaysaa dadku inaanay sida ay ku dhaqmayn oo qoysadii caadi la soo booqanayo in suuqii caadi loo marayo hal case baa ilaa hadda Puntland laga confirm gareeyay taas runtii iyadana waxay leedahay maaragtay waxay leedahay concern ama waxay leedahay maaragtay runtii warwar bay keenaysaa mar haddiiba de aynu ogaanay in qof iyo cudurkii inuu Puntland qof laga helay marka waa inay dadku runtii taxadir zaa'ida iyo mas'uuliyad zaa'ida iyo maaragtay iyo dareen mas'uuliyadeed ay iska saaraan waayo inaga kaliya ma aha waxayna saameynaya waa waxaynu dadka kale dhibaato inuu dadka kale aynu xataa u geynayno ay ka mid yihiin dadkeenu jecelnahay oo ah dadka qoyskeena ina kula nool weliba dadka waayeelka ay aad iyo dadka xanuunsanaya markooda hore xanuuno soo noqnoqda ama xanuuna maaragtay xanuunadan oo terminalka la dhaho ama xanuunadan dadka
إيشك محل ده existing conditions exactly أما قف إسكابا بكانه ومركي يروح حنون كلا قبا أما كسرها أما وحتر من لها أما حتى حنون يرى ما أنت إسكابا وإسكا حنون نبضنا هاي معنيه دت كاس أيا رنتي آد نقول إنه عدو marka adigu haddaad gurigaaga joogtid aad gurigaaga kaatid oo aad familiga ku kaatid waxaad badbaadinaysaa caa'iladaadii iyo bulshadii labadaba saasaad leedahay aad iyo aad ha ma sha Allah waxaan rabaa dib inaan ugu soo noqdo social isolation ka la sheegay inagoo ka eegayna maxaa la dhahaayay dhaqan ahaan Soomaali hadaynu nahay in aynu nahay dad guriga jooga dad aad u fara badan moogtay maaha sidii adduunyada maxaa la dhahaayay adduunyadaas hore u martayo laga yaabo guri 10 maqsina inay saddex qof kaliya ku wada jiraan qof walba qolbu iska gali karaa moogtay social isolation halka waxay ku noqonaysaa inay fududahay halka laakiin waxa laga yaabaa gurigii inay u soo xiraadaan laba qol waxa laga yaabaa inay u soo xiraadaan ilaa 10 qof oo caa'iladii kamid ah oo muhiim ah marka taxadirku wuu adkaanayaa in maaragtay la yiraahdo qof walba koona fariiso ila dad maaragtay u bartay sheekadaana ma nihin moogtay inaynu saa u kala fogaano maxaad soo jeedinayd social isolation marka la leeyahay iyadoo ay adag tahay oo aad aragtidba dadkii inay qaadan waayeen laakiin maxaad kula talin lahayd way ku adag tahay baalmooda marka suggestions baynu u baahanahay micnihii talooyin aynu leenahay micnihii sidan iyo sidan iyo sidan hadday yeeshaan way fududaanaysaa wax alla wixii ay taxadirka gudihiisa la gelin karo oo aynu u sheegi karno maxaad kula talin lahayd dadku inay sidee bay runtii ay arrimahan ka soo baxay dawladda oo leeyahay kala fogaada sidee bay u ayidi karaan oo u sameyn karaan loo hirgelin karaa ha horta waa runta Yasmiinay xaaladaha ama living arrangementka ama habnololeedka qoysaskeena Soomaaliyeed badana ay ku nool yihiin waxa way dad isku dul nool baynu nahay oo qoys halkii guri baa laga yaabaa inay 12 ilaa 12 qof ay joogaan oo ah qoyska kaliya ma aha dad kale oo ku dul nool ama dad kale oo qaraabadii ah oo ama booqasho ama iskuulo iyagoo meel u soo aaday la nool marka proximity-ga ama isku dhawaanshaha aad bay u badan tahay markaasoo kale aniga waxa ila muuqata runtii waana fikir gaar ahaan oo runtii anigu markii aan isku day inaan analyze garayo situationkeena Soomaali ahaan inoo gaar ah waxaan u malaynayaa haddii uu qofku individualka ama qofkii xubinta ka mid ah qoyska haddii ay iyagu ay iska xil saaraan in ay waxyaalahan fariimahan la sheegay oo ah in meelaha dadka bulshada ay isugu dhex jiraan in badan ay iska ilaaliyaan oo laga yaabo ama ay sarreyso nisbadda ama suurtagalka in cudurkii uu qofku soo qaado guriga keeno haddii meelaha la iska ilaaliyo haddii qofku uu individual ahaan ama qof kasta oo xubinta ka mid ah qoyska markuu baxayo uu isku dayo inuu sanka xirto markii uu meelaha qaarkood uu joogo uu isku dayo haddii sidoo kale gacmo dhaqa oo qoyska ay aad uga taxadiraan oo markii ay guriga imaanayaan ay markasta ay gacmaha iska dhaqaan si aanay wixii ay dibadda ka soo qaadeen guriga aanay u keenin mas'uuliyadda shakhsiga ah oo individualku isagu isa saarayo waxaan u malaynayaa haddii qof kasta uu qoyska uu si serious ah ama si maaragtay taxadir iyo mas'uuliyad leh ay u sameeyaan waxa yaraanaya suurtagalkii inay maaragtay ay qoyska in ama iridka guriga in laga soo geliyo cudurkii insha Allah markii loo eego dadka kale oo aan waxa samaynayn iyo markii haddii qof guriga jooga uu naftiisa uu ka shakiyo ama uu wax isu arko in qofkaas uu dadka qoyska la socodsiiyo qofkaasina uu isagu is isolate garayo ama qoyska intuu u sheego uu dhaho in laga durko in meel qol ah ama maaragtay isaga lagu soo xiro qofkaas ilaa xaaladiisa meel laga gaarayo ama la hubinayo inuu qofku xanuunkii uu qabo oo ay symptomskii ay soo baxaan oo lala tacaalo ama maxaa la dhahaye aanay hadhowdii aanay soo bixin oo ay layaa wax kale ay noqdaan laakiin qofkii wax isaga shakiyana inuu sidoo kale uu dadka qoyskiisa u sheego isagu self isolate garayo yani isagu gooni
isu gooni isu saaran minay taas ayaan rabaa inaan siiradu taago intaynaan dhaafin hadduu qofku isku arko ama faamilgu hadday arkaan qof qufacaya hindhisaya qufac qallalan leh maxaan ku rahay hooraya sankiisa hooriya indhihiisa hooriya xumad fara badan leh qofkaasoo kale waxaa laga yaabaa markaa inuu cudurkii u saameeyey qofkaasoo kale markaa maxay samaynayaan caa'iladii iyo faamiligii iyo dadkii qoyskii uu qofku dhex joogay miyay qarinayaan intay meel ku aburaan ay meel geliyaan bay oranayaan yaan layna ogaanin mise siyaabo baa jira taxadirka qudhadeeda ka mid ah maxay samaynayaan horta runtii aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa su-aashan waa su-aal aad muhiima waana su-aal horta wax ay ka jiraan marka la arko hadda Soomaaliya mar kasta oo horta uu cudur dilaaco wax la dhaho stigma ama wax la dhaho cambaarayn oo cudurka lagu la xiriirta baa bulshooyinka dhex gasha oo maaragtay taasaa keentay inay dadku badanaa haddii cudur la qaado inay dadku cudurka qarsadaan si aan loo soo sheegin ama si aan dadka loogu cambaarayn qoyska cudurka ama loogu maaragtay loogu fogeyn cudurkaas marka taasaa keenta badanaa dadku inay qarsadaan laakiin waxaan rabaa inaan dadka la sheergarayo waxayna inoo sheegeen dhakhaatiirta ama wasaaradda caafimaadka xataa in badan inaanu ahayn cudurkan wax la qarsado waayo cudurku ceeb ma aha marnaba cudurku waa wuxuu ilaahay keenay waa wax dadkoo dhan ku dhici kara waa wax qof kasta uu u nugul yahay ilaahay hadduu ku keeno inuu ku dhaco wuu ku dhici karaa marka ma aha qofku inuu wax dambi ah ama wax maaragtay maanta dadka lagu fogeynayo ama wax dadka lagu cambaaraynayo markii la leeyahay dadka inay soo sheegaan haddii cudurka uu ku dhaco waxa weeye si loo ogaado waana mid ka mid ah mas'uuliyadda uu qofku u leeyahay dadka qoyskiisa iyo dadka bulshadiisa in haddii cudurkaasi ku dhaco dadka ag jooga iyo dadka ku xeeran iyo dadka uu la degan yahay iyo dadka bulshadiisa aba inay ogaadaan waa mas'uuliyad qofka saaran waayo dad kale baa dhici kara inay qofka kan ay la tacaamuleen ama ay isku meel ay joogeen ama isla wada shaqeeyaan wax isla dhigtaan isa soo booqdeen meel isu raaceen meel wada fadhiyeen taas waxay keenaysaa hadhowdii qofku dadka kale inay xataa iyaguna ay taxadiraan oo hadhowdii self isolationkii ay sameeyaan ay iyagu dadka kale ka fogaadaan ilaa ay bal wax iska arkaan oo iska arkaan inuu cudurkii soo gaaray oo calaamadihii hadday kusoo baxayso ama haddaanay kusoo bixin marka qofka isku arka maxaa laga rabaa ama qoysku hadduu isku arko maxaa laga rabaa qofku hadduu calaamaduhu iskaga shakiyey laga isku arko waxaa la rabaa inuu isagu is isolate garayo waxaa la rabaa inaad adiga qof ahaan adigu aad dadka ka fogaatid cudurkanina waa cudur calaamadihiisu ay u badan tahay dadka dhimashadu way yar tahay sida la soo sheegay dhimashadu way dhacdaa dad badanna way ku dhinteen laakiin nisbada dhimashada dadka dhimanaya iyo dadka maaragtay kasoo recover garoobaya calaamaduhu waa calaamadaha haddii lala tacaalo qofku maaragtay uu kasoo kaban karo insha allah biidn illah ya marka waxaa la rabaa qof first of all inuu isagu iska dhex saaro dadka imise casho ayaa loogu talagalay ilaa 14 casho miyaa la yidhi waa inuu dadka iska dhex saaraa calaamadaha cudurkan waxay kusoo baxaan qofku markuu qaado 2 maalmood ilaa 14 maalmood taasaana keentay in la yiri dadka muddo 2 week ah ama muddo 14 cisho ah inaad meel kaligaa joogtid si loo confirm garayo awal kow inay cudurkii uu yahay oo calaamadihii oo dhammaystiran ay kusoo baxaan iyo 2 in dadka lagaga badbaadiyo aanu fidin iyo 3 in qofka halkaa lagu daaweeyo laguna la tacaalo xaaladiisa isagoo la ogyahay inuu cudurkii uu qabo markay kusoo baxaan calaamaduhu haddii ay kusoo adkaato qofka uu critical xaalad uu gaaro oo neefta oo kale ay ku adkaato qofku neefsan kara waayo waa saynu sheegnay cudurkan waa cudur gala neef mareenka dadka oo kaliyaha maxaa la dhahaye sambabada buu badana waxyeelaa oo sambabada markuu gaaro buu maaragtay halis yahay oo maaragtay ugu xun yahay marka intaanu sambabada gaarin waa xaalad waqtiyada la leeyahay waa lala tacaali karaa oo qofku isaga la tacaali karo markii uu sambabada uu gaaro oo qofka neeftu ay ku adkaato ama neeftu ay ku dhegto markaasaa la rabaa qofku in uu adeeg caafimaad doono laakiin ma la rabo inuu qofku isaga naftiisa u aado oo toos u aado dhakhtarka dowladda hadday noqoto federal level ama hadday noqoto puntland level hotline bay bixiyeen oo ay ugu talagaleen
in dadka ay neefta ku dhegto iyo dadka ay neefta ku adkaato inay wacaan. Hotline-kaas Puntland waxa weeye 343 waa 343 oo lagu talagalay qofkii neefta ku dhegto ama qofkii neefta ku adkaato inuu markaas waco hotline-ka. marka numberkaas iyaga dadka wixii tala ah u sheegay qofka markaas wuxuu u sheegay in cudurka iskaga shakiyay oo calaamadihii uu qabo oo ay neef maaragtay ay ku dhegtay. markaas iyaga u sheegay meeshuu tagi lahaa oo adeega caafimaad uu ka doonan lahaa iyo wixii taxadir loo baahan yahay. waayo qofku intuu gurigiisa ka soo baxayo uu gaari raacayo uu dhakhtarkii aadayo dad kale dhakhtarka jooga sii dhexgalayo intaasoo dhan inuu sii fidiyo intaasoo dhan waxbuu sii fidinayaa. marka taxadirkeeda bay u baahan tahay taas laftirkeedu waa inuu waco numberkaas haddii uu xataa uu og yahay dhakhtarka oo ama centerka oo waxaan lagala tacaalo uu garanayo uu rabo inuu isagu tago waa inuu centerkii sii waco oo u sii sheego inuu yahay qof iskaga shakiyay waxa oo soo socda in xaaladda maaragtay uu maaragtay uu qabo oo u baahan yahay in laga caawiyo oo uu sheego waxa. marka waxyaalahaas waa fariimaha hadda aynu ognahay oo runtii bulshada aad hadda wasaaradda caafimaadku ee hadday noqoto radio ama hadday noqoto TV ama hadday noqoto maaragtay qoraallo ay aad iyo aad ay dadka ula sheergareeyeen bulshadana dadka ay qaadeen ay dadka gaareen qaar kamida laga yaabo inaanay gaarin laakiin waxaa la rabaa keliya inaan fariinta la maqlin laakiin dadku inay fariimaha loo sheegay inay ku dhaqmaan. waana sababta in maanta halkan uga hadlayno. aad baad u mahadsan tahay. aan xasuusiyo daawadayaasha waa Deera Solutions oo maxaan ku dhahday wada hadal la sameynaysa Muna Cali oo runtii ka shaqeysa bulshada wacyigelinta bulshada aad uga shaqeysa annagoo halka kaga hadlayna taxadirka aad sameyn kartid daawade adiga iyo qoyskaaga iyo bulshadaba si aad u badbaadisid oo kaga hortagi kartid cudurka la yiraahdo coronavirus. waayahay Muna inagoo gabagabadiiba iska joogna cudurkani adduunyada oo dhan baa hadda u xirantay dadkii guryihii bay ku eg yihiin shaqooyinkii waa la xidhay suuqyadii waa la xidhay markadyadii waxay u eg yihiin adduunyada suuqyadeedii caalamiga ahaa waaweynaayo adduunku ku xaali jiray oo lacagaha la isku dhaafsan jiray hoos bay aad ugu dhaceen. dalka Mareykanka oo kale waxaa la yidhi 22 milyan oo qof ayaa waxay xaraysay unemployment waxa weeyaan inay yihiin dad aan shaqaynin oo u baahan laakiin taageero dawladdu lacag ay bixiso weeye. waa unprecedented waa waxaan hore loo arkin. waxaynu halkan ka aragnaa cudurku inuu runtii saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha adduunyada. inagu halkan Soomaaliya aynu joogno kulleba saameyntaasoo kale way jirtaa meelo badan baa la xidhayo meelo badan baa bandow lagu soo rogay. waxaan rabay inaan su'aalkaa weydiiyo bandowgaas iyo suuq xidhankaas iyo maxaan ku rahdaa ayay dhaqaalihii oo runtii hoos u dhacaya dadkoo dhan buu saameyn ku yeelan karaa laakiin weliba bulshada maaragtay inta aynu runtii jecelnahay inaynu aad ugu qabanno oo danyarta ah ayay waxyaalo badan u geynaysaa. arrintaa maxaad nagaga kordhin kartaa maxayse dadku samayn karaan? waxaa jira dad nolol maalmoodkooda u ordo oo markaynu hadda ka hadlaynay social isolation iyo self distancingka dee qof baaba jira aan samayn karaynin oo ay tahay aroor walba inuu suuqa yimaado oo inta yar oo reerka ku maareynayo uu kasii shaqaysto. dadkaasoo kale oo runtii aad uga hadlay inaanay ka joogi karin suuqa oo suuqa imatigiisa uu yahay waxa ay ku nool yihiin. maxaad intaa ka oran kartaa? horta runtii arrinkaasi waa arrin jira waana saad sheegtay dadka danyarta ah oo nolol maalmeedkooda uu ku xiran yahay maalinta inay baxaan waxay soo geliyaan qoyskooda bay aad u saamaysay waayo bulshada waa bulsho isku xirnaanshaha iyo shaqooyinkan maaragtay bulshada dhexdeeda ah aad uga shaqaysta waa dad muruqmaalkooda ku shaqaysta hadday yihiin rag ama dumar waa maamooyinkii caanaha iibinayay iyo khudaarta waa nimanka kuliyaasha ah oo maaragtay subaxii intii ay soo shaqaystaan maalintii reerkooda ku quudinaya marka aad iyo aad bay u saameynaysaa waxyaalahan maaragtay cudurkan jira dhinaca dhaqaale saameyntiisa dhinaca dhaqaale ah. runtii waa arrinkan runtii maanta waxaynu inagu aynu xalkiisa aynu keeni karno halka ma aha laakiin waxaynu taaban karnaa keliya inuu yahay xalka arrimahaas bulshada iyo arrimaha weliba dhaqaalaha bulshada saameynaya weliba dadka danyarta waa arrin maaragtay ay tahay dowladda iyo ganacsiyaasha iyo bulshadu inay iska wada kaashadaan in dadkaas il gaara lagu hayo
in xagga dawladda oo kale for example haddii sicir barar oo kale uu ka yimaado arrimakan waana maqlayna sicir barar inuu ka yimid dawladduna xataa laakiin way ka hadashay in maaragtay qiimihii alaabta suuqa weliba alaabta muhiimka ah oo reeruhu ay ku xiran yihiin maaragtay quutalyoomka qoyska ay ku xiran tahay in aan lacagteeda la kordhin waa dowrka ay kaalinta ay dawladdu ay ka ciyaarayso bay ila tahay waxa kaloo jirta dowrka ganacsiyaasha oo kale ay leeyihiin iyagoo ilgaara ku haya walaalahooda danyarta ah iyo walaalahooda Soomaali guud ahaan laakiin weliba danyarta in ilgaara lagu hayo oo maaragtay lacagaha aan la kordhin oo haddii ay ka fikeri karaan habab kale oo dadkan muddadan lagu badbaadin karo oo dadku in ay ku noolaadaan xataa lagu badbaadin karo wax shaqo ama hawlgal ay samayn karaan oo taa la xiriir haddii ay ka fikeri karaan in laga fikero weeye waayo waqtigu wuu sii adkaan doontaa haddii ay xaaladdu ay sidan kusii socoto hadda waa room bando baa jira ama lockdown baa jira laakiin waxaa laga yaabaa inay asaabiicda soo socota ama waqtiyada soo socda inay kasii darto baa laga yaabaa waayo hadda adduunka waynu arkaynay ilaa bishii December sanadkii hore ilaa waqtiga maanta la joogo wuu kasii daraya wadcigu ama xaaladuhu way kasii darayaan hadba waxaynu arkaynay dalalka caalamka kale inay hadba sii adkaynayeen ama more restrictions ama adkayn badan dhinaca socodka iyo maaragtay iyo isdhexgalka ay sii adkaynayeen hadba taasoo maaragtay keentay dhaqaale xumada aad ka hadlaysay sidoo kale bulshadeena iyo dadkeenu inay iska warhayaan qoysaska laga warhayo in qaraabada laga warhayo in inta aynu wax iska caawin karno oo in maaragtay dadka ku kordhin karno inaynu qofkii baahan oo dariska ah ama qaraabada in iyada sidoo kale laga warhayo waa waqti runtii aad dadkoo dhan ugu adag laakiin aad iyo aad loo baahan yahay in la isugu naxariisto in la iska warhayo iyadoo la iskaga warhaynayo telefoonadii iyo technology-gii ma inaynu FaceTime baa laysu soo geli karaa ma aha muhiim in laysla joogo marka iyadoo oo rabadaan ay nagu soo fogan tahay wax aad u muhiim ayaa tiri weliba haddaynu si yara qeexno afka ku yara dhufano lacagihii la soo diri jiray oo laga soo diri jiray qurbaha oo remittance-kii xawaaladaha soo mari jiray aad bay u adkaadeen hadda waayo dadkii inoo soo diri jiray ayaaba iyagu hadda shaqo la'aan wada ah oo dadka unemployment-ka raadinaya ayay ka mid yihiin hadday Mareykanka joogaan hadday Yurub joogaanba runtii waxa weeyaan nimcaynu haysanin nimcadeena waxaan u malaynayaa maanta ayaynu ognahay nimcada aynu ku noolayn lacagta faraha badan oo iska daba imanaysa maanta istaagtay laakiin waxaad leedahay iyadoo ay taasi jirto siyaalo badan oo bulshada dawladda ganacsatada waliba ganacsatada intooda waaweyn oo xoolaha fara badan awoodi karta inay wax ka siiyaan maxaan ku raadayay dadka bulshada oo danyarta ah iyadoo taasoo waliba ay noogu darsantay hadda inay rabadaan ay nagu soo food leedahay oo waqtigii bishii khayrka qabto rabadaan ay tahay in aad la isu xasuusto oo baad leedahay micnihii awalba dad is og baynu intaas aynu ku badbaadnay Soomaali haddaynu nahay la sii ogaado oo la sii xoojiyo waxtarka oo qof walba isxilqaamo oo halkii laga sugayay diasporada dadka loo yaqaano khayr allaha siiyo oo dalkan aad iyo aad u badbaadiyo intaasoo sanaba faraha ku hayay oo gacmaha lagu hayay soo diriyay waxay soo dirayeen in bulshada inteeda kalena ay maanta ka qayb qaadato oo buuxiso meelihii isbanaanaaday oo ay buuxin jireen qolada diasporada qolo kastaba maanta waqti weeye waqti aan hal jiho ama la dhihi karin maanta dawlad kaliya wax ka qabato ama hay'ado caalami ah kaliya wax ka qabtaan ganacsatada kaliya wax oo qabato ama bulshada kaligeed wax ka qabto maanta waa waqti la joogo in juhuud oo dhan ama si maaragtay iskaashato ah oo iyo si la isku kaashanayo oo la wada tashanayo in wax loo qabsado gabagaba ayaynu joognaa bishii khayrka qabtay ayaa inagu soo fogan cudurkan iyo rabadaan baa isgalay dadka aad iyo aad waxay uga dhawaajinayaan inta badan allama waxaa dhaci karta iyadoo rabadaan ay tahay aan taraawiix la tukan karin oo tahajjud la tegi karin oo dadku aanay afurka wada cuni karin waqti adag baan u malaynayaa inuu inagu soo fogan yahay aad iyo aad u adag oo horena aynaan inaga u arag maxaan ku idhahday bugaagta taariikhduna ay qori doonto maxaad talooyinka ugu dambeeyey maxaad dadku kula talin lahayd Manoy kaliya waxaan kula talin lahaa oo kusoo koobaya waxa weeye kulligeena maanta mas'uuliyad baa ina saaran mas'uuliyadaasna ma aha
maaha mas-uuliyad kaliya maanta aniga oo kale nafteyda ay ka saaran tahay laakiin waa mas-uuliyad qofka cudurkan cid reebaya ma aha marka mas-uuliyadda aniga kaliya nafteyda igama saarna qof kasta oo igu xeeran qof kasta oo maaragtay bulshada ah mas-uuliyad baa iga saaran haddaan qof ahay sidoo kale qof kasta oo bulshada ka mid aha mas-uuliyad baa ka saaran naftiisa ahalkiisa iyo bulshadiisa maanta waxaan joognaa bay ila tahay in badanna waa laga dhawaajiyay hadday noqoto dawlad hadday noqoto dhakhaatiir hadday noqoto culamaa uddiin maanta waxaynu joognaa waqti oo nafta bini'aadanka lagu badbaadinayo marka wixii muhiim ah iyo wixii laynoo sheego oo nala ku dhaho dadka bini'aadanka naftooda baa lagu badbaadinayaa runtii waa inaynu hoggaan uga ahaanaa dawladda waa inaynu ka dhagaysanaa waa inaynu maaragtay aynu samayno oo inta maaragtay inoo suurtagalka ah at least inaynu maaragtay dhageysano fariimaha wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirka iyo dawladdu aynu la sheergaraynayaan sidoo kale aynu iska ilaalino inaynu dhageysano wixii misinformation ah ama wixii macluumaad khalad ah ama wixii macluumaad oo aan ka soo bixin jiha dawladeed ama jiha maaragtay wasaaradaha caafimaadka ama jihooyinka dadka cudurkan khubaraa oo ah inaanaynuna dhegaysan inaanayna dadka kusii dhex fidin waayo maanta khatarteeday leedahay runtii mas-uuliyaddeeda iyo su-aasheeda xagga ilaahayna way leedahay maanta mar haddaynu dad kale aynu u sheegno wax aanay wax ka jirin ama aynu dadka aynu maaragtay u sheegno wax khaldan oo cudurkan la xiriira fariimaha ama waxyaalaha aynu dhegaysanayno ha noqdaan wax ka soo baxay jihooyinka rasmiga ah oo wasaaradda caafimaadka dawladdeena oo iyadana maaragtay hogaaminaysa arrinkan covid-19 waxqabadkiisa iyo sidoo kale dhakhaatiirta iyo maaragtay jihooyinkaas rasmiga oo cudurkan khubaraa u ah waxay inala wadaageen ha la iska ilaaliyo baan leeyahay aad iyo aad in macluumaad ama xog cudurkan kahortagiisa ama saamayntiisa ama daaweyntiisa ku saabsan oo khaldan oo aan cid jihad rasmi ah ka soo bixin aad iyo aad intaasaynu intaa waxba ku dari mayno macluumaad aad u fara badan baad na siisay maasha allah tabaaraka allah aad iyo aad wax u taraya intii dhegaysataba idinkuna sii gudbiya dhegaysta wax ku qaata macluumaadka halka aan idinku soo gudbino runtii waxaan ugu talagalay inaad kaga hortagtaan khatarta uu leeyahay cudurka covid-19 annagoo mar walba ku howlan inaanu idiin soo gudbino macluumaad aad isticmaali kartaan ood hore ugu mari kartaan hadda si aan ku fooganahay sidii loo badbaadin lahaa bulshada oo looga badbaadin lahaa cudurkan adduunka oo dhan ku baahsaday innaguna ay tahay inaynu iska ilaalino muna cali aad iyo aad u mahadsan tahay insha allah ilaa iyo isku imidkeena dambe waa dhiiran oo idinle aad baad u mahadsan tihiin macluumaadkan sii gudbiya sii isticmaala munay aad baad u mahadsan tahay thank you mahadsanid yaasmin walaal aad baa mahadsan tahay assalaamu calaykum calaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh